muuqaalkeennii hore waxaynu ku soo aragnay sooyaalka dhulka Falastiin iyo sidoo kaleba sida uu dhulkani u soo maray xukunno kala duwan. qaybteena labaad ayaynu ku eegi doonnaa qaabkii ay Yahuuddu ku qabsadeen dhulkan iyo sidoo kaleba sida ay dhidibada ugu taageen dowladoodan gumaysiga ku dhisan ee maanta ay xogga ugu haystaan qayb ka mid ah dhulka Falastiin. kadib markii uu kala dhantaalay Nabukhadnezzar boqortooyadii ugu dambeysay ee ay Yahuuddu yeesheen, waxa dhacday inay ku kala faafeen daafaha caalamka, noqdeenna dad aan xuquuq badan ku lahayn dalalkii ay markaasi joogeen, cadaadis badanna kala kulma dadka ay la noolaayeen. maxaa yeelay dadkan ayaa ku suntanaa madax adayg iyo kharibaad ay ka geystaan meelaha ay degan yihiin. muddo kadib waxa dhacday inuu abuurmo dhaqaaq lagu doonayo in la yagreero hal dowlad oo Yahuudda daafaha caalamka ku nool ay leeyihiin. dhaqaaqa ugu badan ayaa waxaa hogaaminayay Yahuuddii ku noolayd bariga Yurub. 1896 waxaa miiska la soo saaray in dib u dejinta Yahuudda loo doorto 4 waddan midkood, kuwaasi oo kala ahaa Falastiin, Argentiin, Uganda iyo Mozambique. dadkii waday qorshahan ayaa go'aan ku gaaray in Falastiin ay noqoto halka laga taagayo tiirka cusub ee bilowga u noqday dib u yegleelidda dowladda Yahuudda. bilowgii qarnigii 20aad waxaa daafaha iyo gudaha Yurub ka bilowday dhaqaaq xooggan oo ay Yahuuddii ku noolayd Yurub ku doonayeen inay taageero u helaan qorshahaasi. boqortooyada Ingiriiska ayaa bilowgiiba noqotay dowladdii ugu horeysay ee taageerta abuuridda dal ay Yahuuddu leedahay, waxaana sanadkii 1917 wasaaraddii arrimaha dibadda ee Ingiriisku ay soo saartay warqaddii ku caanbaxday magaca ballanqaadkii Balfour. warqaddan ayaa ahayd bayaan ay dowladda Ingiriisku si cad ugu qeexday taageerada iyo garab istaagga dhismaha dowlad ay Yahuuddu leedahay iyo sidii looga caawin lahaa dhisidda iyo deegaamaynta Yahuudda. waxaa la dejiyey qorshihii Yahuudda loogu rari lahaa dhulka reer Falastiin laguna deegaamayn lahaa. waxaa bilowday abaabul si hoose Yahuuddii ku noolayd bariga Yurub loogu daadguraynayo dhulka reer Falastiin. dhammaadka dagaalkii koowaad ee dunida waxaa Falastiin ku soo qaxay Yahuud ka badan 50,000 oo qof, kuwaasi oo ka soo guuray dalalka Poland, Ruushka iyo Ukraine iyo qaybo kale oo bariga Yurub ah. sanadba sanadka ka dambeeyana waxaa sii siyaadayay tirada Yahuudda lagu soo daadguraynayo gudaha dhulka Falastiin ilaa sanadkii 1920 ay tirada dadka ku nool Falastiin ka noqdeen 12%. sanadkii 1924 markii ay burburtay khilaafadii Cismaaniyiintu waxaa kor u kacay damicii ay qarsanayeen awoodaha gadaal ka riixayay mashruuca dejinta Yahuudda ee bariga dhexe. gumaystihii Ingiriiska ayaa la wareegayay dhulka Falastiin, wuxuuna gacanta ku dhigay qaybo kale oo ka mid ah bariga dhexe. si degdeg ah ayaa loo dardargeliyey soo rariddii Yahuuddii Yurub oo xasuuq iyo beegsi aad u badan kala kulmayey Naazigii Jarmalka 2 sano gudahood. kadib burburkii dowladdii Cismaaniyiinta, 78,000 oo Yahuuddii Yurub ah ayaa soo gaaray Falastiin. tirada Yahuudda xoogga lagu dejiyey waxay dadka dhulka Falastiin ku nool ka noqdeen 17%. dadka reer Falastiin oo aad uga soo horjeestay dadkan dhulkooda sida xoogga ah loogu beerayo ayaa bilaabay inay dagaal kala hortagaan doomaha wada dadka laga soo daadguraynayo bariga Yurub. Ingiriiska ayaa hubeeyey kooxo u abaabulan sidii ciidan jabhadeed, kuwaasi oo uu ka dhex qoray Yahuuddii la dejiyey dhulka Falastiin. ujeedka ciidankan ayaa ahaa sidii ay isaga difaaci lahaayeen Falastiiniyiinta oo dareen xooggan iyo weji adag ku qaabilayay Yahuuddan xeeladda iyo xooggaba lagu soo dejinayo dhulkooda. sanadkii 1929 waxaa dhacay dagaalkii ugu horeeyey ee dhex maray kooxihii uu hubeynayay Ingiriisku iyo kooxihii Falastiiniyiinta. dagaalkan ayaa ka dhacay derbiga masaajidka Aqsa, waxaana ku dhintay ku dhowaad 300 oo qof oo isugu jira labada dhinac. mar kale bilowgii sanadkii 1930 waxaa dhulka Falastiin soo gaaray 250,000 qof ama 250,000 oo Yahuud ah oo laga soo raray meelo kala duwan. ciidankii badda Ingiriiska ayaa doomo waaweyn kaga soo daadguraynayay dadkan waddan kasta oo Yurub ah. marqura ayay tiradii Yahuuddu gaartay 30%, waxayna si lama filaan ah ku noqdeen awood muuqata. waxgaradkii Falastiin ayaa bilaabay abaabul dagaal oo ka xoogan iska horimaadyadii hore. 6 bilood ayay si joogto ah duulaanna ugu qaadayeen xeryaha la dejiyey qaxootiga Yahuudda. dhiig badan ayaana ku daatay dagaaladii u dhexeeyey Falastiiniyiinta iyo ciidankii Yahuudda oo markan hub badan ka helayay Ingiriiska. gumaysigii Ingiriiska ayaa marka la dejiyey qorshe ka halis badan kii hore, wuxuuna soo saaray go'aan dhulka Falastiin lagu qaybinayo Falastiiniyiinta iyo Yahuudda.
maadaama markan ay tiradoodu isku dhowaatay 30% dhulkan waxaa la siiyey yahuudi 70% soo harayna waxaa loo daayey oo loo dhaafay falastiiniyiinta halka magaalada barakaysan ee qudusna uu ingiriisku u sameeyey maamul si qaas ah isagoo u hoostaga qorshahan cusub dad badan oo reer falastiin ah ayaa ku waayey guryahoodii iyo deegaanadoodii kuwaasi oo dhacay daantii la siiyey yahuudda waxaana bilowday in dadkii dhulka loogu yimid ay markan noqdaan qaxootiga ka qaxaya dhulkoodii oo si xoog ah loo kala qaybsaday sanadkii 1947 ingiriiska ayaa ciidamadiisii kala baxay dhulka falastiin kadib markii uu u dulqaadan waayey qalalaasaha ka dhashay qorshihiisii dulmiga ku dhisnaa waxaa magaalo kasta ka bilowday dagaallo iyo isku dhacyo taladii dhulkana wuxuu gacanta u geliyey qaramada midoobay oo markaasi ahayd urur cusub qaramada midoobay ayaa soo saartay qaraar xoojinaya go'aankii ingiriisku uu ku kala qaybiyey dhulka falastiin maamulka magaalada barakaysan ee qudusna waxaa la hoosgeeyey qaramada midoobay falastiiniyiinta ayaa aad uga soo horjeestay qaraarkaasi waxayna mar kale bilaabeen dagaal hubaysan balse yahuudda oo markan xoogaysatay ayaa suurtogeliyey inay u sahlaan yahuud kale oo cusub inay u soo guuraan dhulkan ciidankii yahuudda oo markan aad loo hubeeyey ayaa sannadkii 1948 ay u suurto gashay inay xoog kula wareegaan 78% dhulkii reer falastiin waxayna dhisteen dowlad ay ugu magacdareen israa'iil dowladdan cusub ee laga dhisay dhulkan xoogga lagu qaatay waxaa isla bilowgiiba aqoonsaday maraykanka iyo ingiriiska waxayna ka mid noqotay dowladaha ku jira qaramada midoobay dowlad jirta oo la aqoonsan yahay ayayna ka dhigteen falastiiniyiinta ayaa waxay u qaybsameen 2 qaybood qayb u qaxday waddamada dariska la ah sida jordan iyo lubnaan iyo qayb ku hartay gudaha falastiin waxaa loo abaabulay kooxo jabhado ah oo uu ugu weynaa ururkii PLO ururkan ayaa dagaallo toos ah la galay ciidankii israa'iil waxaa markii dambe dagaalka soo galay isbahaysiga waddamada carabta 1967 waxaa dhacay dagaal 6 maalmood socday oo u dhexeeyey israa'iil oo taageero ka helaysa ruushka maraykanka iyo ingiriiska waddamadii carabta ayaa dagaalka lagu jabiyey israa'iilna waxay qabsatay dhul cusub oo ay ku jiraan bariga qudus marinka khaza iyo daanta galbeed oo falastiin ah halka siiriya iyo masarna ay ka qabsadeen buuraha golan height iyo gobolka sinai wadahadallo kadib markii dambe way ka baxeen deegaanada qaar balse weli bariga qudus iyo buuraha golan height ilaa maanta gacanta israa'iil ayay ku jiraan ururka xoreynta falastiin ee loo soo gaabiyo PLO ayaa duulaanno badan ku qaaday danaha israa'iil ee gudaha iyo dibadda waxay fuliyeen howlgallo loogu beegsanayo israa'iil waxayna isugu jireen siyaasiyiin arrimaha falastiin ka difaaca saaxadda caalamka iyo ciidan ku jira dagaalka waxaana hadaf u ahaa xoreynta falastiin si walba oo ay ku qaadato muddo kadibna waxaa halganka ku soo biiray kooxda xamaas oo ilaa maanta la dagaalantay yahuudda halka ururkii xoreynta falastiin uu isku beddelay urur siyaasadeed dagaalada iyo iska caabinta shacabka reer falastiin waa mid ilaa maanta taagan halganka xoreynta falastiin waxaa u daatay dhiig badan qoys walba oo reer falastiin ah way taabatay geeridu kumanaan ayaa xabsiyada weli ugu jira kumanaan kalena qaxooti ayay ku yihiin dalalka caalamka israa'iil weli waxay maalin kasta si xog ah ku sii wadataa la wareegidda dhulka reer falastiin caalamkuna wuxuu u qaybsamay kuwo ku taageera dulmiga iyo kuwo aan ka hadlin balse dusha uun kala socda si kasta oo wakhtigu u adkaado daruufuhuna u dhib badnaadaan waxaa xaqiiq jirta ah oraahda odhanaysa dhul ninkiisa ayaa iska leh gumaysiga dadkan lagu haysto waa uu jabi doonaa dulmiguna maalin unugu dhammaan doonaa si kastaba ha ku dhammaadee halganka reer falastiinna waa uu guulaysan doonaa